waxaa la yidhi caawa sheekaan idinka sheekeynaya laba nin oo dhallinyaro ah oo iska xoogsantahay oo dhallinyarada xamaalatay baabuurta rogta oo qol yar oo sandaqada degan oo iska soo xamaalata maalintii habeenkiina usoo hortatagta qolka maalintii bay soo xamaasheen oo markaasay waxay soo qaateen baaliinkiish yaro shubariis ay soo heleen qolka iska soo dhex dhigteen oo waxay siyaadeen waxna aad iibsateen waxna aad magaranaysaa iska karkarsateen habeenkii iyagoo hurda dhar kale iyo alaab kale iyo waxaasna duuma yaaliin waa inta ay gashan yihiin iyagoo iska hurda habeenkii nin tuuga soo dhacay baali markaasuu gurigii baadhay midbaa markuu tuugu soo galayba show mid baa soo jeeda oo weli aan sii gamin midna wuu hurdaa kii soo jeeday wuu la socdaa tuugan guriga baadhaya laakiin deena wax oo liboogi tuugi markuu wax kale waayay buu wuxuu arkay bariiska yara meesha yaallo wax kale waayay buu siyaa leena haddaa kan intaad xoogaa ka shooto ha ka wada qaadanay waxa weeye isaga tag markaa wuxuu soo qaatay shaarkii uu gashanaa dee wax kale ku shubta ma jire shaarkii uu gashanaa miduu iska bixiyey buu siyaad bariiskii ku shubatay saasuu u dhigtay wuu goglay bariiskii intuu kusii jeeday soo qaaday laakiin soo jeeday baa shaarkii ka jiitay markaasuu intuu duuduubay shaarkii buu markaday oo dhinaca saartay kabacdina kii markuu bariiskii meesha soo dhigay siyaad ku shubtay shaarkiiba waayay intuu shaarkii raadinayay shaqafshaqaftii iyo wixii uu yaabanaabaa kii hurtay toosa markaasuu yidhi intuu la hadlay kii soo jeeday buu hebelow markaasuu yahay markaasuu yidhi warba tuug baa inoo soo galay gulle markaasuu yidhi warni u tuugna ma jira naga seexo kiina saa tuugii baa intuu qayliyey buu yidhi waryaa xaguusan tuuga jirin hadduusan tuug jirin yaa shaarkayga qaatay